حاج علي عبد الرحمن فقي من الأورنجري وكون محكومة قاعدة حاج علي مشارتين مع الأورنجري وحنا وراء قرني سديد يتبناد علماء الصوماليات وعنك أد ونقطة أيها وحوها nin culum badan yaqiin oo aan diinta kaliya ku ekayna culum badan oo culumta xataa Greek hore iyo xisaabaha iyo engineerinka waxa hadda loo yaqaan waagi loo oran jiray cilmi masaaxaat iyo wax badan ayuu yaqiinay inuu wuxuu ahaa mawsuuci ah marka mawsuuci ha ahaadee lama fadhiyeen inuu wuxuu ahaa hadana ku camal faro oo dadkana gaarsiiya isaga laftiisuna jihaad galay soo diinta u faafiyo waxaad ku garanaysaa isagu wuxuu ahaa reer nugaaleed agagaarka garoowe ayuu ku dhashay كل يا صدق بقول يو سديت مات كمالهاس أيو كل شيء هلك أيو دجانا هلك أيو دين تكبر جلدتك دتك أقول يو حلو ما لينا يا إنه يهاي وصومالي ده حاجة تجيبه إنه يهاي أما دتك مذوق يجري هذا صومالي يعني دتك مذوق يعني عربت أهين أما مسلم كاس كلا أهين دتك أقول يو حاجة تجيب أيوها قرن يسديت بنات بلو برتبيه سمالهاس حاجو مركا نوح وها سانسو شيء دينتا كو عمل فرها او حتى مركا قاركود كو جهاده waxa la sheegay inuu xataa inta tagay meesha la yiraahdo Bombay iyo Hindiya ومساجد ka dhisay masaajidka wali dhisan yahay magaalada Bombay la yiraahdo oo Hindiya aakhirka xaajku soo wareegay wuxuu soo wareegay koonfurta Soomaaliya marka iyo agaalkeeda gosha dhulkan la yiraahdo labada webi u dhaxeeya Jubba iyo Shabeelle ayuu soo wareegay markuu soo wareegana diintu aad u faafiyay dadkii uu ku kari waayay jihaad buu ku qaaday xirtiisii uu ciidanta ka dhigtay ayuu jihaad ku qaaday wax badan baa laga hayaa marka oo taariikhda xaajiga inkastoo wixii isagu uu qoray aan waxba laga hayn haddana taariikh badan ayaa laga hayaa meel kale laga helay ama dadkii arkay haday yihiin dad European iyo haday yihiin dad kale waxa ay ka qoreen baa laga arkaa حلو قرار هذا عربي وكقرينا آد ببدناين عربي وكقريش واحد لا سومالي مركا ما قرينا وذا نوها شيخو مركا وحان كجرنا يا وهدي قال له كورون يا هاي ورقد دير وقري وذا سن الشيخ هاي حبوره هاي مركا وحالي هذا الأجوبة الغيبية للسؤالات الغربية ودير آد ودير waxaad ka garanaysaa oo kale waxa weeye jawaabihi yani qaybiga ahaa oo loola jeeday oo looga jawaabayo su'aalihii reer galbeedka galbeed waxa markaa dhagax buur ba ah haga marka aad bay u dheertahay waa risaale aad u dheer oo cilmi badan iyo ay ku jiraan mantiq waa ku jiro culum kale ku jirto carabi waa ku jiro nin baa soo weeyay wadaadkaas soo weydiiyay wax wadaadku marka waxa uu qaatay inuu tijaabinayo aqoontiisa marka ayuu hadana u jawaabay marka aad u dheertay culum badan baa ku jirta oo cilmi gaar iyo cilmi muslim oo ka buuxa marka si aan wax loo baran hadda ayuu u bartay waxa oo ah inuu culum badan oo aan diini kaliya ahayn wax walba ah uu yaqaanay buu ahaa aakhirkiisaan soo sheegay wuxuu ku dhintay meesha la yiraahdo marka wuxuu ku aasan yahay tuulada la yiraahdo cagaaran oo qabrigiisu ka yani ka halka lagu aasay وانا مركز دوريات كذا مركا مسافوينك حاجة وتري مركا وكسب سنتين تي وعدك تنوع عن سنوي مدة هذا عن مرين دونه هذا الله إنه وصد حرف عن كم مرين دونه ألف كيو بعض يو جيم كي حدا أفر حرف أيان مرين دونه وعد ويه وحنا لقي عبا إن أيتهاي مانسو نسوق قاعد يوصل على ظهره تلسيتن وجهه وانا هينو inay tahay ayaa laga yaabaa cidda ku xigtaana waa raaga ogaas baan qabaa inta soo gaadhay xaajigu marka midaan wuxuu kaga hadlayaa marka aakhiro ninkan u faran dhibaatada haysan doonta hadhow ku dhaci doonta wuxuu kaloo kaga hadlayaa dadka xusuusanaya yani malakul mawtka yani geerida wuxuu kaloo aakhiro dhibteeda ayuu tilmaamayaa dhibaatada taala wuxuu tilmaamayaa oo kale in yani in loo baahan yahay in loo saad qaato oo wax loo tabcada hadeer aakhiro wuxuu kaloo ka dagaalamayaa midna khuraafaadka oo kale waxyaalaha sanadka la yiraahdo Soomaalidu ay tiqeen oo aan diinta sal ku lahayn ayuu iyagana ka dagaalamayaa marka wuxuu yiri alifiyeen ibnu aadni arin waad ka dhacan tahay ilaah waa ilaaheen dadna waa adoomadii eedaadiya ku ogaada niman aakhiru faran ereygan ku oran doono ma iga aqbalaysaa istimaacu waa doore uduneenka raarici annaha igaga amaarin adna laabta ku adkeeb
maanaha aqoon gaaban maadaa adduunyaah ina eedama ilowday abtirsiinyaheennii amradiyahu aqoon laawa aawa aabbayaashaa ragga meeshan lagu aasay waa wada asaagaa wadka duulkan aynabay adma wuusan ku arkayn mase wuusan ku ogayn mase waad ka adag tahay mase inuusan kuu iman axdiba ulahaydeen injiraha hadduu laayay waa inuu alaal yahay arxan inuusan garahayn nebigii ma aynanin istikfaarta ku hanuuna ajashiinna ka horow urur noolba lagu waani arrafo iyo soonqaad iid noolba la awaaji odayaasha kuu talin adse weli ma aabayne ma oboo kalaa tahay arwareegada adkaysta omos baa horreeyee allow yaa ogeysiiya inay eeri go'an tahay sanamkii kama idlaanin aftinta iyo doogada lo'da haatan igar weeye afagaal wixii dhalay nirig naaf unuungoyntii ab horay ka soo tiil marna oloshii kama daynin nina haatan aabbihii illi noolba kuu sheegay ahabtiina kuu naqay aan waa aamusahayaa wax afeefe iga tahay nina yuu hadhow ooyin goor tala abaajiday kaasi waa alifkii aad baad umahadsantayd haddii alifka aan su-aala kaa weydiiyo ereygan alifiyeyn oo kale uu ku bilaabay muxuu yahay muraadkiisa alifiyeyn alifiyeyn waxa weeye yeen alif baa wuxuu yidhi weeye wax kale maaha macnaha anaa idhi odhan umaayo alifka diinta ayaa yidhi hadalkan macnaha diintu alifka iyo xuruufta markaa diinta matalaysa alifiyeen baiteen xaa'iteen khaa'iteen siiyeen nuuyeen waawiyeen kulli waa ku tiriyaan oo mid walba wixii ku habanaa marka mid walba waxay ku habanaa ku tiriyaan ereyada haddaan qaar kaa weydiiyey intana aad tirisay nirig naaf unuungoynti aba hore ka soo tiri nirigu waa awrka yar marka nirig iyo nirigna waa la yidhahdaa nirig iyo nirig iyo qurbac iyo intaba waa la yidhahdaa marka waxa weeye nirig naaf xidig waxaa jira la yihahdaa naaf madoobe xidigaha dayaxa yani ay wada fadhiistaan 28 ah waxaa ku jira mid la yihahdaa naaf madoobe habeenkaa naaf madoobaha ay tahay haddii uu waa sanan wax soomaalidu ay taqiin weeye weliba geeltiraha soomaalidu aad u yaqiin haddii habeenkaas uu dhasho awr hashu dhasho waa laga gawraci jiray sababto geelu halaynayaa baa la odhan jiray oo yani kuma fiicna inuu noolaadaba niriga naaf marka xaajigu wuxuu leeyahay waa qalad macnaha naaf madoobe iyo naaf cadda midna ma keeno xoolaha bulaalkooda iyo baaba'ooda ayuu leeyahay waxaa la mida tan kale oo lo'da haatan igar weeye afagaad waxay dhal afagaad isna waa xidig weeye dayaxa la fadhiista waa xilli weeye markaasna waa kii lahaa ninkii heesay haddaan ururtiyo afagaal riday marka eedaa ilaah baa qaba anna orodkay waa intii hore wuu ku lahaa geela markuu ugu heesahayey oo macnaha afagaalku markuu dhaco roob baa la fishaa iyo haddii iyo barwaaqo iyo marka laakiin wuxuu leeyahay anigu dadaalkaygii ilahay bay ku xiran tahay wixii kale waxaad moodaa inaysan ku xiran ilaahay wixii hore labadooda waa ku xiran yihiin laakiin wuxuu leeyahay anigu waa soo dadaalay marka ilaah buu baryayaa oo kale weeye waxaa ku xiga ba'da ba'iteen iyadoo wuxuu kaga hadlaya marka ugu horreysaba tuwaakada oo markaas in la cuno la bilaabay oo uu leeyahay waa xaaraan wuxuu kaloo ka hadlaya wax ku qaadasho la-aanta maaragtay dhibaatooyinka bani'aadamka soo mara sida abaaraha iyo cudurrada iyo oo idna waxba ku qaadanayn buu leeyahay yani yaa baad leedihin dadku la hadlaya bani'aadamka ah waxaa lamid oo uu diidaya cayaaraha habeenkii la tunto iyo waxaas ayuu leeyahay waa xaaraana xaggee aakhira ka gelaysaan maca dembigaas oo marka waa wacdi weeye masafada oo dhan marka haddaan ku xijiyo wuxuu yidhi ba'iteen ba'ow aadmi ma baraarugaysaa buuriga kan xaaraana bal maxaw cunaysaa bal maxaad u baankuusi bakhtigan aan la gowricin baxri maa xalaaleeyey inaad been hawaas tahay rabbi sow ka baqi maysid maradhaara kay tahay buurbuurna kugu yaaci beerxawna kuu keen belad noolba soo aragtay baasaha abaareed baxri noolba idin waani barbarse alla kaa mari waxaad buunayaal aragtay barkhalle iyo saylixi beerkaaga kuma doogan hadalkaa biliilihi ina waloo barbaarihi timihiisa biifee belladiisa ka cayaar beledkiina waasaca bannaankaa buduu idleeya bilkhamiis miyuu gelib haddana waa sekadii yani dadkaan sekada bixin buu la hadlahayaa uu leeyahay adigu xoolaha ma lihiin ilaahay baa ku siiyee intii uu ku yidhi ka bixi bal sekada allaad baajin maadaa bidhaan kale bakti baadan filanayna baqaskaaga sii fuud haddaad maanta baydoonto berri baynu leenahay nin balaayo lala maagay badda yaa ka celin kara jahanabo bawaarkeeda belelkii xadiimaad bacaskii hadday noqoto oo bankalaysa soo tubo oo dhididka kaa baxay webigii basraad yahay oo baadilkaad falatay baalkii ku qoran yahay
afka baabah laga yeero baabacadu marag tahay haddaan boohintaa badanin beenlowgu waa ani uu leeyahay xaajku markaa waa tii ba'da ahayd wey waxaa halkan baabacadu waxa weeye waxaa yani la yidhaahdaa aayad qur-aana weeye aakhira markii la tago oo qofka dembiilaha la xisaabayo oo uu doono ama uu isku dayo inuu inkiro afka inta laga xirabaya waxa jirkiisa baa ku marag furayaa la yidhaahdaa haragiisa gacmihiisa lugihiisa yowma tashhadu calayhim arjuluhum waaydiihim suuratu yaasiin aayad ku jirta ayuu tilmaamaya xaajigu markaa afka baabah laga yeelo baabacadu marag tahay haddaan boohintaa badanin beenlowgu waa anig waxaan ku xijinayaa jiinkii wuxuu yidhi jiinyeen jabow aadni ma jalbeebanaysaa jid xun baad ku socotaaye jiscin ma u helaysaa jees miyaa ku habban in asaagi jiibsaday jaankaaga waxaad fuudi jid siraad ma moog tahay ninna jaamo uma tolonin joombiyadna ka af badan jireeciisu waa sida timaha jaahiisna uma kaco ninkaan jiirta waa jidka siraad uu ka hadlahaya ninkaan jiirta laga saarin duul jahanabaad noqoy jilibkaaga ma og tahay iyo jinatuurku waa been muslim way isku wada jooga jidna yuusan kuu talin nafta waad jeclaydayna jarka ha iska xoorina jahanabiya ololkeeda ma nin jiir ulaa jira waataad u wada jeeday ragga jawhartiisii maxaa niman jamaamiira jeexa looga soo kacay malagii jajuubahayay aad ma joojinaysaa jeesdhaafka nebi waaye ma jeclaysanaysaa qabrigiina kuu jeexan laxodkiina kuu jaran jiirkaaga dixiraale meelaha jinaadka ah lafta joofabaa harisaantaada jirifta ah jildigaa ku marakici warqad beriba lagu jiiday jeebkaa laguu gelin wax adduunkii lala joogay majikaartan baa jira in qiyaama jiri doono ninna yuusan jaaxidin jibcahaa dadka u maraga jinniga iyo wanaaskaba goortuu jibaadaayo ninna ruuxu kuma jiro jaantaan inagu jiifniyo sharcadii la foololay waa la rogaya dhulka jacalnaa calayha asaafiraha baa ku dhacaysa jaantaan inagu jiifniyo sharcadii la foololay mar haddii la kala jeesto ninba jiidii waa u socon jahanaba niman baa leh jannadiina duultage sunnihiina buu jaray kutubkiina nin jahaadka wax u sheegay waa ehel jaxiimaad sunnihiina buu jaray kutubkiina jeer dhaaf inuu jaahil ku caddaaday anigaa u joogsada nin jamaacada u guuray alla waa ku jecel yahay nin kufaarta ku jahaaday janna waa u dhowdahay jalaalaynku wuxuu sheegay maku jaaxidaynaa anjuujaa u dhiman maayaan waxba iiga juusayn adna waana uma jeedo anna waaba jiijaday haddii aadan juqi hayn hadalkayga jawhara jinnigii isha caddaa iyo jafariilla kuu talibu waxaa kugu soo hartay xadi iyada ugu yaab badan wuxuu yidhi xa'iteen xusuus laawe ma isla xaddi weyn tahay xaakaa laga abuuray xawadaada rubadda ah xawadaa qof laga keenay ma xeeraarinaysaa xawl kaamilaad huruuday xeryo eebba kuu dhigay waa hooyada habartaana waa xaamil xog kuu dhaafsan ma og tahay xijaab eebba kuu dhigay yaad ku xurdiyoonayd xanaf gaajo ad ma arag dhogortaana ma xumaan xawleyn waxaad huruuday xabadkeeda naaska ah xadkay hooyadaa aragtay xaalkaa dhan oo idil kuwa haatan xaarxaarin sow kama xishoodaan adigoo xumoo xaarle yaa lagu xambaarsaday xoolaha allaa yeelay xaqna kaaga waajibi sakadii ma xaalaynin xunxun beena maahee inaad xadhigga soo geliso waad ka xantanaysaa xuduuddii allana diidday xeerkiina kuma jirin ilaahay xogtaada og waadna xarbiyaysaa aakhirana uma xeeban xeradaana wayada qosolkaad isku xabeybin xujo maad u leedahay xarakaad wax ku habban nin ilaa xoreeya raggaa sare wax ka xabaashay ma xusuusanaysaa malagii iyaga laayay adma kuu xabiibbaa xagidaan ku wada awnay waadna xaragootaa xaq halkaynu ku hubnaaya xeellaawa iga dhaha hadday nayl dawaca xageeto xaarxaaro badana nin xalaashi laga qaaday sidiis waa isxumeeyaa xidibtiisna kuma keenin xooggiisna kuma helin inta lagu xanaaneeyey xamdi eebba uma naqin ilaahay xeryaha joojay u xisaabin darana markaas wuxuu xusuusinayaa raggii leeday oo dhintay oo magaca lahaa iyo meeqaanka uu leeyahay kuwaas maad ka fiican tihiin sow aadan iyo xaawo xaygoodii ma ahayn nebigii alla xurmeeyey xataa nebi maxamed baa dhintay waa kuwa gabayada ugu horreeyey oo diinta ku saabsan oo soomaalidu tirisay oo aan xafiday waxaa ka mid ahaa ugu horreeyey hadday dunidu tiir leedaho lagu tanaadayo
niman ku taajirahayaan taallada aan joogno toolmoonihii maxamed baan laga taxaabeene maxaan tamarigaad uga welweli tay umayleeya marka yani had iyo jeer tusaale weeye in nebigii aan la dayna uu dhintay marka ninna ma rajayn karo inuu noolaado intuu doono sow aadan iyo xaawo xayigoodii ma ahayn nebigii alla xurmeeyey xinjirtiisii lama dayn nimankii xunayn diriray xaddi may lahaayeen sow xaamid lama joogin maantay xaquuqmeen sow xaabba lama jiifin maxamuud xawaadane sow samantar uma xaantin meel loo xariiqnaa xanduliya maxaa laayay xisi faarixii hore awa xiliyo xooliyo xeryegaaladoodii maxaa lagaga xaaleeyey xor kafniina maahe kafan unbaa ka raacday maxaa lagaga xaaleeyey xor kafniina maahee waa kaa xaq daranahay xog miyaad u haysaa xubintaa cun mooye xaal oo dhan ma moog tahay ardadow xalaal quudo xaaraanna ha u noqon ardadow xalaal quudo xaaraanna ha u noqon xaq allaad ku dhalateena xeeryuu ku tabadulin muslim wa isku wada xooge tiirida ha la xeebsado xayawaankii lala joogo sakada ha la soo xiro oo toobadda xanuunkeeda xabadku ha ku doogsado xabiibkaaga kuu tolo iyo xididba ha la aakido dadis waa xaq weyn yahay ee xaajadii ha loo galo xan iyo xumaan xan iyo been xumaan iyo xasad xaaraan wixii gala intaan uunka la xisaabin xaalkood ha laga baxa buu yidhi xaajigu xaaji cali allah u naxariisto waa xaaji cali majeerteen